kulantu waxaan wanaagsan daawadeel ku soo dhawaada wararka ugu waaweyn ee Soomaaliya caalamka qodobada maanta aan kugu helno waxa ka mid noqon doona qaraxyo waaweyn oo maanta gilgilay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan xaradii lama galay ayay galeen kooxo markaasi ismidaamin qaraxyo ku hubeysan gawaarida waaweyn oo markaasi qaraxyo laga soo buuxiyay ay gudaha u galeen qasaaro weyn oo isku jira dhimasho dhaawac ayaa ka dhashay mas'uuliyiin maamulka ka tirsan ayaana ku geeriyooday wasiiro xildhibaano dad shacaba sidoo kale waxaan idin soo gudbinaa madaxda dawladda federaalka ayaa si kulul uga hadlay qaraxyada maanta ka dhacay magaalada Beledweyne ra'iisul wasaaraha madaxweynaha maamulka Hirshabelle siyaasiyiintii hore ee dawladda Soomaaliya xelalka hor ugu soo qabtay ayaana ka hadlay qaraxyada iyo weerarada xiga ee maanta ka dhacay magaalada Beledweyne waa daawad doontaan xoogii golaha shacabka baarlamaanka Cabdikariin Buuxna oo iscazilay sababta ka dambaysa maxay tahay Asiya Aadan Madoobe oo durbaba khilaaf culus oo soo kala galay iyo Aadan Madoobe shaqo cusub uu ku bedel oo dhanka waxbarashada ka socda hadaba shaqsigaas waa kuma xoogihii horena muxuu isku cazilay maxay isku hayaan Asiya Aadan Madoobe waan idin soo gudbin doonaa shabakad ka tirsan ururka al-shabaab iyo hubkii warkaas ay wateen waxa lagu qabtay magaalada Muqdisho kadib ciidamada soo howlgal ay sameeyeen gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho ayaa faahfaahinaya waa daawo doontaan General Zakiyana waxa ay si liyaab leh uga hashay saddex qodob oo lagu adkaan karo ururka al-shabaab qodobadaas aan ku faahfaahin doonaa warar kale ama caalamka diblomaasiyadda fadlan haddii aad noqoto subscribe ka saarkan balkan furo una sii share garay saaxiibadii meel kasta joogaan idinka commentiga like inoo reebaya aad baad u mahadsantihiin aynu ku bilaawno warar dheeraad ah ayaa waxaa laga helayaa qasaaraha ka dhashay qaraxyo waaweyn oo maanta gilgilay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan kuwaasoo ahaa ismiidaamin sida ay shaaciyeen laamaha amniga qaraxyadan oo ahaa saddex waxaa loo adeegsaday gawaari nooca xamuulka qaada waxaana lagu weeraray xerada lama galay oo ay ku taalo madaxtooyada Hirshabelle waraadada lagu kalsoon yahay ayaa inoo sheegay in qaraxa koowaad uu ka dhacay afaafka hore ee xarunta halka qaraxa labaadna uu ka dhacay gudaha dhismaha la weeraray halka saddexaad oo ka dhacay afaafka hore xarunta lama galay wararka waxa ay sheegayeen dhimashada ay haatan ay gaarayso ilaa 10 qof isugu jira mas'uuliyiin askar iyo dad kale oo shacab ah mas'uuliyiinta geeriyooday waxaa ka mid ah wasiirkii caafimaadka Hirshabelle Dr. Zakariya Hore iyo gudoomiye ku-xigeenkii maaliyadda iyo siyaasadda gobolka Hiiraan Abuukar Maadi halka soo kalena uu ku geeriyooday xildhibaan Isxaaq Geelle oo markaas ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle sidoo kale waxaa dhaawacyo culus soo gaareen taliyaha ciidamada daraawiishta Hirshabelle Axmed Dirar iyo gudoomiye ku-xigeenka maamulka maaliyadda degmada Matabaan Cabdikaafi Shire xaaladda ayaa ah weli mid cakiran waxaana socda tirakoobka qasaaraha rasmiga ee ka dhashay qaraxyadan oo sidoo kale geystay burbur aad u xoogan weerarkan qaraxyada loo adeegsaday ee ka dhacay magaalada Beledweyne maanta ayaa ku soo aaday xilli Hiiraan ay ka socdaan howlgallo culus oo ka dhanaa al-shabaab qaraxyada ka dhacay Beledweyne ayaa soo kale yimid saacado kadib markii ay dawladda Soomaaliya shaacisay howlgal ka dhacay deegaanka xaramka ee gobolka Jubbada Dhexe lagu dilay dhaxal sugihii markaas muddada dheer sugayay in uu bedelo waa amiirka al-shabaab Axmed Diiri Abu Ubayda Abdullahi Nadiir oo kamid ah aasaasayaasha ururka al-shabaab ee ciidamada dawladda ay shaaciyeen ee wiil uu dhalay wadaadka xabsi gurubka magaalada Muqdisho Sheekh Xasan Daahir Aweys qaraxyada gilgilay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan maanta ayaana dadka aad ay ugu naxsan yihiin waxayna si weyn ay ugu falcelinayaan baraha bulshada waxaana dhinaca kale ka hadlay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo si kulul ugu cabaariyay weerarkaas bahalnimada oo ku tilmaamay inuu yahay mid ka baxsan bini'aadanimada waxa uu sheegay in ay xanuunjisay reer Hiiraan al-shabaab kadibna ay sameeyeen argusho balse wuxuu sheegay inaysan cabsan gelinin shacabka Soomaaliyeed ayna u dhiiran yihiin in ay iska dulqaadaan hirida iyo dhibaatada al-shabaab shacabka ay ku hayso hadal ku dhigay wasaare Xamse Cabdi Barre dhinaca kale madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ayaa dhankiisa ka tacsiyay geerida mas'uuliyiinta maamulka ka tirsan ee ku geeriyay qaraxyada maanta saxeeyay ka dhacay Beledweyne dadkii shacabka ahaa Allah uu markaas u weydiiyay inuu naxariis jana ka waraabiyo dadkii halka ku dhintay kuwa dhaawacna uu markaas caafimaad degdeg u siiyo waxa soo kala ka hadlaya dhinacyada kale oo ay isugu jiraan shacab iyo soo kale siyaasiyiin oo markaas weyn u cambaarey wararkan argagixisada ee maanta ka dhacay magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan qabii hore ayaa daawanaysan markaan haddii aan eegno xogihii baarlamaanka golaha shacabka Soomaaliya Cabdikariin Buux ayaa iscazilay sida waraadada lagu kalsoon yahay ay inoo xaqiijeen xogiya Cabdikariin Cabdi Buux ayaa iscazilaadiisa u gudbiyay guddiga joogtada ee golaha shacabka sababta uu isku cazilay xogiya Cabdikariin ayaa lagu sheegay inay tahay khilaaf soo kala dhex galay gudoomiyaha baarlamaanka Aadan Madoobe iyo gudoonka oo soo ku haya hab maamulka lacagta baarlamaanka Buux oo ah qofka
ugu sarreeya shaqaalaha baarlamaanka Soomaaliya balse aan xildhibaan ahayn ayaa lagu eedeeyay inuu lacag badan oo ka mid ahayd tan baarlamaanka uu si qaldan u maariyay waa la yaab ayay leeyihiin dadka Soomaaliyeed oo mas'uuliyiintii ayaa lacagihii dawladda iyo dadka shacabka loogu talagalay musuqmaasuqaya waxaa la sheegay in 350 qof oo shaqaale baarlamaanka ugu qornaa laga helay kaliya 150 iyadoo markaas 200 kalena la sheegay inay ahaayeen magacyo aan jirin oo lacag markaas lagu qaadan jiray waxaa sidoo kale dhawaan la ogaaday lacag ka badan $1 milyan oo dhawaan markaas aan loogan halka ay markaas ka baxday gudoomiyaha Aadan Madoobe iyo labadiisa ku xigeen ayaa tan iyo intii loo doortay guddoonka baarlamaanka Hiiraan waxa ay wadeen in la saxo qadaadkii uu sameeyay Cabdikariim Buux oo iscadilay Buux ayaana fursad loo siiyay inuu iscadilo ama xilka laga qaado taasoo uu aqbalay Aadan Madoobe ayaa war-saxaafadeed uu soo saaray waxa uu xilka u baneeyay ruux u magacaabay Cabdiraxmaan Maxamuud Cabdulle Jaabiri oo ahaa waxbarashada markaasi wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliya arrintan ayaana si weyn maalmihii la soo dhaafay loo hadalhayay in dhinacyadu ay khilaafku markaas ay isku sii bartumanayaan qaybay dhaxaya daawanaysan janalkan daawadayaal haddii aad nagu soo subscribe noo soo gambarkan furo una sii shargaray saaxiibadii meel kasta joogaan idinku commentiga like inoo reebaya aad baad mahadsantihiin markaana gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duq magaalada Muqdisho oo shir jiraad u qabtay wariyaasha ayaa ka warbixiyay howlgallada ciidamada NISA ay ka sameeyeen magaalada Muqdisho madaara ayaa shaacin howlgalkan markaas lagu soo qabtay shabakad isku xiran oo ka tirsan Al-Shabaab wuxuuna sheegay in haatan loo soo xiray loona gudbin doono maxkamadda duq Muqdisho ayaa sheegay in xubnaha la soo qabtay ay saldhigyo ka dhigtaan guryo ku yaala caasimadda kuwaas oo kiriseen sida uu hadalku dhigay ciidamada ammaanka maalmaha waxa ay wadeen buu yiri howlgallada ay ku sugayaan amniga caasimadda iyo daafaha magaalada ciidaha amniga howlgalladaas inta ay ku jireen waxay la kulmeen meelo badan oo argagixisadu ay ku dhigteen saldhigyo ay gabaad ay ka dhigteen oo gudaha magaalada Muqdisho ayuu yiri gudoomiye Madaali wuxuu tilmaamay inay gacanta ku soo dhigeen hub fara badan iyo goobo caafimaad oo loogu talagalay in lagu dabeeyo xubnaha markaas dhaawacma ee Al-Shabaabka ka tirsan ugu dambeyntii gudoomiyaha ayaa hoosta ka xariiqay in dawladda ay la wareegtay ilaa 5 guri oo markaas laga soo qabtay raggaas isagoo sidoo kalena ugu digay shacabka ku dhaqan gobolka iyo caasimadaba inay markaas guryo aysan ka kiraysan dad aysan aqoonin ay markaa weydiisaan arrimaha kirada ku saabsan guryaha qaybihii gabagabada ayaan ku sii shaqeynaa dhinaca kana taliya ku-xigeenka ciidanka booliiska Jenaraal Zakiyo Xuseen Axmed ayaa si cajiib ah uga hadashay 3 qodob oo looga adkaan karo Al-Shabaab ku-xigeenka ciidanka booliiska Soomaaliyeed Saraakiil guud Zakiyo Xuseen Axmed oo maanta ka qayb gashay kulan looga hadlayay doorka haweenka ee ku aadan xoreynta dalka ayaa kaashay dagaalka Al-Shabaab Zakiyo waxa ay shaaca ka qaaday in ay muhiim tahay in loo wada istaago dagaalka adag ee haatanba lagu jiro Al-Shabaab si loo ciribtiro dalka oo dhan Jenaraal Zakiyo ayaa waxa soo kale ay soo bandhigtay 3 hab oo loo guuleysan karo Al-Shabaab waxaana markaas ay sheegtay 3 shay haddii aan ku dadaalno beetri Al-Shabaab dalkan waa laga ciribtiriyaa waxaana ku diidaynaa beetri horta gurigeena waa ka mamnuuc qofkeena waa ka mamnuuc guurna ma geynayno iyo tiri Jenaraal Zakiyo soo kale waxaa sheegtay in 3 qodob haddii la sameeyay ay banaanka soo istaagtay in Al-Shabaab markaasi ay wajahaan dhanka iyo cunaqabateen hor leh oo markaas loogu adkaan karo wararka arrimaha gobolkan waxa uu waaweyn daawadayaal Ruushka ayaa weli waxa uu wadaa duqeymaha ka dhanaa Ukraine halkaas oo weli khasaare kala duwan laga soo sheegayo furimaha hor leh ayay Ruushka ay kala wareegeen Ukraine halka madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelensky uu dhankiisa sheegay in muhiim ay tahay in iska dhaceen duulanka Ruushka qaaban uu ku soo qaaday dalkaas Ukraine magaalooyin oo Evropa Ruushka oo hore u haystay Luhansk iyo ayaa ka mid ah meelaha ay markay gacanta ku hayeen gasto Ukrainiyiintu ay sheegeen in ay iska caabin weyn ay sameeyeen tan markii uu gulufka qaaday dhanka Ruushka ay kaga yimid ayna markaa ay meesha caalamkii wadamada kalena ay ka codsanayaan in gargaar ay la soo gaaraan wararka waaweynaa aad kala socoteen janalkeena waa naginta daawadayaal haddii aad nagu xigto subscribe kuna soo gambarada kana furo una share gareeya saaxiibadii markasta joogaan idinku commentiga like-na inoo reebaya aad baad u mahadsantihiin